كان قلبه كو كلام مويه سعيد هلمبو كان قلبه والله يقول كلا أتكاضي قوانكي إيا قبنمدي إيا دميستركي مامولك خاتم استيدنا ما تواهر قلي سيداكو قل سعيد هلمبو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعانو ونكسن دمان ومدى الصومالية قوب كستا إيا قور كستا جوكتان وبرنامج كان يفتيمينتا إيا قول إيا قبنمو ما تصوهو يتي وحنال كان حنباليو iyo gobonnimo iyo salaan khalkhalkeeda iyo shaxshaxdeeda iyo gobonnimadeeda wadata aan halkan u marinaya shacabka reer Khaatumo SSC Khaatumo oo dhabar adeygay dhiig iyo dhacaan eegay iyo maal iyo naf iyo maalba u huray siday masiirka iyo sharafkooda iyo karaamadooda iyo shacabkooda iyo ubadkooda iyo degaankooda eegay iyo taladooda ay gacanta ugu dhigi lahaayeen arabtu waxay tiraahdaa man jada wajada wa man zar'a al-hasad Soomaaliduna waxay tiraahdaa shaqaysta waa dhargaa shaahiisana waa hela waayahay waxa ka codsanaya barnaamijka horta dad ku soo gaarnaa si sheergelisid hadii salaadi ku joogtana u soo tukabadayna gelin hadii kale nabiga ku sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxaan rabaa maanta inaan isdul taago maamulkii SSC Khaatumo oo dhameystirmay tacab bacda raax dadaal dheer halgan dheer orod dheer dhiig badan oo naga daatay dhidid badan oo naga qubtay eegay waxaan maanta maraynaa meeshii ugu wanaagsanayd maamulkii Khaatumo oo waxa weeye argagixisada SNM iyo Saciid Hulumbe ninkii Saciid ahaa waxaan u bixiyay Saciid Hulumbe wuxuu yiri ninkii han leba hablaha la hadle Hulumbana ma soo taaga Hulumbe Saciid Hulumbe liyada nafteed iyo rajo iyo aqli iyo garasho horta Saciid Hulumbe laga sugaya haba yaraatay ma jirto maamulkii SSC Khaatumo harti waa sugu yimi Ahmed Harti oo Morcasa Maxamuud Harti oo warsangaliya Saciid Harti oo dhulbahanta ah ma dhibaan garaad iyo nimankii fiqashini ahaa iyo Maxamed Harti oo majeerteena oo codkoodii ugu dambeeyay meesha keenay Maxamed Harti baa ka maqnaa meeshan nimankii suwaaqroon ee ceerigaaba deganaa ee gobolka Sanaag wax ka deganaa saaka iyaguna laas caanood bay ku xaadireen shirkii baa loo fadhiyaa waa la is hor fadhiyaa Harti waa ku dhan yahay ma dhibaan waa joogaa fiqishini waa joogaa cid allaale cid kasta oo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn degtaa maanta way ku dhan tahay waxa halka lagu shirayaa oo lagu dhameystirayaa maamulka SSC Khaatumo wuxuu yiri wax badan baad raran iyo rafaad ku jirtay ku raaxaysan reenka kaaraha wax badan baa shacabka reer Khaatumo dhibaato iyo xabad dispute area Somaliland maya Puntland maya Somaliland maanta waxay maraysaa eegay maamulkii SSC Khaatumo inuu dhameystirmay waxaan rabaa markay ergadii ugu dambeysay ee beesha Maxamed Harti suwaaqroon oo iyaguna ka soo qayb galay nimankii Ahmed Harti iyo Morcasa horaad u ogeydeen oo anagu waxaanu nahay dadkii ugu horeeyay oo meesha tagay oo reerka Harti la yiraahdo ka socda waxa nagu xigay walaalaha iyo warsagali oo gudigoodii iyo cuqaashoodii iyo aqoon-yahankoodii iyo siyaasigoodii oo Cabdirashiid Yuusuf Jibriil hogaaminayo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa iyaguna daraad ka degay maantana waa majeerteen dheego daanu nahay beesha Siwaaqroon gaar ahaan ee degta gobolka Sanaag ee beelweynta majeerteen waxaanu halkaan u nimi codkii Maxamed Hartina halka keeno haddaanu nahay beesha Siwaaqroon ee degan gobolada Sool iyo Sanaag waxaanu la duruuf gaaral nahay walaalaha kale reer SSC waa beesha Siwaaqroon ee Maxamed Harti ee ceerigaaba deganayd oo gudigoodii iyo aqoon-yahankoodii iyo waxgaradkoodii wata oo ka degay magaalada Laascaanood waxay sheegaysaa beeshu in ay la waxa weeye qab iyo qaaraan iyo wax qabad iyo la wadaag iyo dhan kasta ay ka tirsan tahay maamulka SSC Khaatumo waa ilaahay mahadi maanta waa ilaahay mahadi hadii aan laba maamul samaysanay maamulka hore ee Puntland iyo SSC Khaatumo oo sida la isu dhaafayo labada dhinacba barwaaqa taala waxa weeye Ahmed Harti kama maqna Maxamuud Harti kama maqna Saciid Harti kama maqna Maxamed Harti kama maqna madhibaan kama maqna waa la iskula dhuuqaya maamulku waa federaalka la sheegayaba halkan uu ka dhacay
بطلان واحد شوقة محمد هارتي أحمد هارتي سعيد هارتي يا محمود هارتي هل كان واحد شوقة أحمد يا محمد يا محمود يا سعيد ما نتر حوا راسي محا حساب طبعا كان هارتي إسلاينية يا هارتي إسديلية يا هارتي سعيد هلوم بإسكندرية يا هارتي حبات إسلا دعية مدينة ما شرتو سعيد هلوم بو هل مد إسكيلو بس كحدا أنا كسر إن هارتي حبات إسوقاتو أو إسلايو أو أساسي خاطمة يا بطلان أنت لما عيدان إسكوري مادان إن إسلايان وهبينكي حالها أو تجي بلا دقيقي لبدا ديناع waa lagu dhan yahay adaa fudud Saciid Khasaroy Saciid Hulumbow adiga ku fudud Puntland adiga ku fudud SSC Khaatuma adiga ku fudud Hartina adiga ku fudud wallahi wiil uga dhimanayn iyo bille iyo talle inaan wiilal hartay inta score keento aanay xabad isla dhacayn adigoo shalay Saciid Khasaroy tunka ku sitay Xasan Munaafiq inaad maanta tiraahid Xasan Munaafiq baa soo weeraray Puntland baa la weeraraya ha dhacay baa jira dhagixii buurta saarnaa banaanku yimi dhagixii buurta saarnaa banaanku yimi aqli iyo garasho idaadan lahayn umada Soomaaliyeed aniga oo cadeynaya wararta beesha suwaqron oo hadalkoodii si wata ee ma jeerteen ila dhigto wax yar dhulka aan ka nimi oo hadda suldaanka hogaaminaya uu ka yimi ma gaadho Puntland si kasto ay noo jeceshahay ma gaadho ma kama ciidamin karto kama difaaci karto waa xaq kalaam xaq abu ku hadlay hadal run abu sheegay ilaahay baana ka yeersiyay dhulka aanu ka nimi iyo magaalada Ceerigaabo Puntland ma soo gaadhay maxay soo gaadhaa Saciid Hulumbe isaga Ceerigaabo bixiyay Ceerigaabo isaga bixiyay oo kula heshiiyay nimanka ii dooray Hargeysa jooga in xildhibaanada uu qaato waxa weeye sanaagna la kala baro waa reer dhan oo saldanada oo warsangeli la yiraahdo oo soo jireen ah eegay baa deegaankoodii iyo masiirkoodii la kala qaybsanaya oo Saciid Khasaare wuxuu yiri Saciid Hulumbe wixii dhahar iyo inta loo gaaro buraan iyana aniga iska leh wixii halka Ceerigaabo iyo baran iyo laasqoray loo gaarana iidooro idinku qaata cirrow adigu qaado waa saldanadii warsangeli waa dadban masiirkoodii baa wuxuu doonayaa Saciid Hulumbe inuu isagu jeebka ku shubto kaar la yiraahdo ma jeerteen buu dabcan inuu xoqdo kiina maanta waa ka jeexjeexnay kaarkii ma jeerteenkana maanta laga jeexjeexay waa kuwa nimankii Suwaqron ee ma jeerteen Maxamed Harti Suwaqron waa niman Maxamed Hartiya eegay waa nimanka deegaanka Sanaag degan kaarkii Saciid Hulumbow aad qoxoqanaysay ee ma jeerteen maanta aanu ka jeexjeexnay Hartina meesha waa ku dhayn Nuur Casa jooga nimankii Axmed Harti ee Tiinle iyo Gabtaanle iyo Magalabe oo gobolka Sanaag degan warsangeli baa jooga Maxamed Harti oo Suwaqron ka socda baa jooga dhulbahanta jooga eegay maamul Soomaaliyeed oo masiirka umada Soomaaliyeed iyo midnimada iyo gobonnimada umada Soomaaliyeed looga shaqeynayo ayaa laga yeegleelay harti maanta islaynayana ma jiro annaga Saciid Hulumbow Saciid Hulumbe wariya Saciid Hulumbe wax Allah iyo wax maanta ku soconaya iyo wax aad ka sheegay dulqaad ma lihid oo aqoon ma lihid oo siyaasi ma tihid xawaash leedahay jirtay xawaashle nin ganacsada oo xawaash ka ganacsan jiray bariga horena jeestada Masar ka soo qaadan jiray eegay oo isagoo kabna laadlaadinaya kabna sito 9 ciyaala wata boosaas deeqa soo galay xamar ka soo qaxay deegaankii iyo dhulkii iyo meeshii aad ku ceestay baad maanta waxaad doonaysaa dadkoodina inaad gaajo u dishid gaajo buu dishay caruurtaadina aad waxa weeye kambaniyada iyo wixii umad lahayd aad u qaybiso maantana doonaysaa harti dhicisana xabad karidu wallahi harti islaynayana jirin maamulkana waa dhameystirmay wayna dhaqaaqday wuxuu yiri kani galbe ku kala mooye Saciid Hulumbow kani galbe ku kala mooye SSC Khaatuma waa dhaqaaqday hartina waa ku dhan yahay saasa maanta la isu leefleefaya eegay adiga iyo cirra waxaad ku soo heshiiseen iyo mishinkii aad dhigteen iyo sidaan u fashilinayna barnaamijka ku xiga isagoo cadaymihiisa wata marxaatihiisa wata umada Soomaaliyeed fartaan kugu fiiqayna Muqdishona xoog kuma yeelan oo nimanka reer koonfureed ee hawiyay umada Soomaaliyeed ee Muqdisho joogta waa ku ogtay baladeegay hartina maanta waa ku tufay Saciid Hulumbow reerkii harti la oran jiray waa ku tufay kaarkii ma jeerteen islaantan Allah uu naxariisto hooyadeena kaarkeeda saa u xoqanaysay nimanka maxaa harti aad ku gucinaysana Suwaqron baa foostada dalooliyay harti baa dalooliyay islayn mayno xabad isu qaadan mayno wiil naga dhiman maayo maamulaanu dhisanayna aqoon-yahanna jooga isimaanu leenahay wax garad baanu leenahay waxba la kala riixanaya
laakiin dulqaad xumadaada iyo doqonniinadaada iyo garasho xumadii aan kugu ogaa eegay wuxuu yiri indhalaan ma ku ogaa dad qallim ay ku darsatay ninkii baarlamaanka su'aal marka la weydiiyay xaarka ban saa isugu sideynaya baad hay oo mingirifoonka la cararayay eegay aqli cidi ka sugumayso garashada cidi ka sugumayso siyaasadna cidi ka sugumayso hartina wallahi isku ka sideyn maayo harti markan kuleeyahay la xajaclaa nagaga jirta dalka iyo dadka iyo deegaanka wiil iyo gabar toonna ma doonayna inay nagaga dhintaan mana dhacayso xabada qush haday xabada tiraado wallahi koolbatu meesha guriga waxa weeyad garow ka dagtaa lagu weeyay madaxana lagu qabanay xasan haduu xun yahay iyo haduu fiican yahay siimafu afka qalaad siimafu xasan haduu xun yahay iyo haduu fiican yahay iyo haduu wanaagsan yahay adiga u socda shalayna adiga la socday oo farmaajo waxa weeyay halka tunka ku dhaganaa maanta adiga muqdisho u socda bal hadeegay furiya muqdisho uma socdo ala doonaya xildhibaanadii iyo wixii aad yeersan jirtay inaad yeesho loo ay biyo lawaa wixii kuwa weynihii wareegaye markuu wada jiraa waqtigu helay waa kuwa weynihii wareegaye markuu wada jiraa waqtigu helay bari samaad waa badnaan noloshaas ka badatay way soo dhamaatay xilligii xildhibaanada jeebka lagu shuban jiray way soo dhamaatay xilligii loo rajiray ra'iisul wasaare aniga iga dhig hebel ha loo yeeriyo waa dhamaatay sifini afka qalaad sifini waa isku dhamaatay maamul dhamaystiran masiirkiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisa iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed looga talinaya SSC Khaatuma ka bilaabatay hartina waa ku dhin war maxaan idin harti waa ku dhan yahay soo idimo oran kaarkii ugu dambeeyay maxamed hartina waan maanta ka jeexjeexno nimankiisu waa qoran baaba tagayba haddii la oran maxamed hartina meesha ka maqan maxamed hartina Siciid Hulumba waa jooga wuxuu yiri waraabihii jiray ee hasha iyo ndrigta looga tagay hashina intuu candhada goostay buu ndrigtina afka goostay inkastoo maxay ka nuugtaa maxay soo ku nuugtaa kaarkii maxamed harti ee ma jeertana maanta la soo afjaray hartina waa tashaday qof dambe oo siyaasiya oo caada qaata eegay oo dulli aad dambana la dhageysan maayo oo wallaahi waxa ku baxaysa nafsigii angalayba igu sogdoomo hadaaga xasareeye ama waranka iga goy halbowlaha ku ganane ama gacalad nafsigii farmaajo baa kugu dhacay waa taasoo abada waa taasoo muqdishona kugu dambayso waa taasoo harti oo dhan iyo daarood oo dhan iyo hawiye iyo dir iyo daarood Soomaali oo dhan ku cadaysan tahay sidee ku galay Siciid Hulumba sidee ku galay war guriga gobonimo ka dhacday maamulkii waa la dhameystiray shirkii waa socdaa harti meeshu waa isugu yimi fiqishin iyo habar gidir waa joogtaa ma dhibaan waa yimi dir iyo daarood halkaas jilbaha la isku aasay maamul khalkhalkiisa iyo qamshaxdiisa iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo gobonnimadii ku dhantahay ba halka ka bilowday baladeegay ninkii hadlayaaba ha iska hadle Khaatumo way dhaqaaqday maanta guushan waa sugay guushan dhiig baan u daadiyay dhacaan ba iga baxay dhaqaala iga baxay dhidid ba iga baxay waqti ba iga baxay Siciid Hulumba saad doonaysa adigu meel kun wiil ku nafweyday kun wiil oo hartiya ku nafweyday inaad yeelkhiyaq iyo ciyaar ku qaadatid inaad yeelkhiyaq darowlad baad ku dumisid aqliga oday baan la dhageysanayn mid yar baan la dhageysanayn mid weyn baan la dhageysanayn cid allaaliye cidii ka hortimaada maamulka SSC Khaatumo ee halka lagu dhameystiray sool sanaag iyo cayn cid allaaliye cidii ka hortimaada kabaha la marayaniyo waxaan wanaag iyo gobonnimo iyo sharaf iyo dawladnimo iyo midnimo ahayna kama soo naasacada xasan baa la soo weeraray Puntland baa la soo weeraray Puntland baa la soo weeraray xoolihii iyo hantida ummadda Soomaaliyeed carruurtaada iyo walaalaha baad u qaybis inkaas leedahay xasan baa soo weeraray xasan soo ka shalay wadatay ma xasan wuxuu hayaa hantida ummadda Soomaaliyeed maamulka waxa la hariyo wixii looga faa'iideyn karo waa looga faa'iideynaya xasan munaafiq iyo adiguna isku mid baatay isku meel baad noo joogtaan anaga muhiimadda iyadoo in maamulku noo dhismo wax allaaliyo wax naga khusayaan naga jirto la bidaan la timacade la xasan la adiga la quruntiina waxba naga ma gelin aniga waxay cad maamulkaas inuu dhameystiro ma dhameystirayay maanta daasid waa isku dhamaatay baan ku guuliga gobonnimo idin rajanaya reer Khaatumo ciidanka Khaatumo la hadlaya iyo maamulka amniga waa inaad inoo adkeysaan cid allaaliyo cid aad ka shakidaan jeegadaad qabanaysaan jeegada meesha rag iyo dhuux iyo dhiig ba ku maqan Siciid Hulumba sidee ku galay war khayr iyo barakaad idin rajanaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh